magacaygu waa Maxamuud Cabdullaahi Badar ku dhashay Puntland gaar ahaan gobolka Karkaar magaalada Qardho wax badan baan kubadda ku soo dheeray magaalada Qardho waxaan ahaa ciyaal baasidka ama sallaxa dadka kubadda ku bartay waxaan noqday Serie A magaalada Qardho ku noqday ilaa Serie B Serie C 2005 baan adigu Serie A-dii ka qayb galay koobkii ugu horeeyay ee Serie A ee magaalada Qardho waa ka tagay oo waxbarashadii waan u bedeshay gobolka Bari magaalada Boosaaso waxaan ka mid noqday naadi la oran jiray OTB Land Hawada magaca aan la baxnayna wuxuu ahaa Horseed waxaana ka ahaa kabtan ku xigeen markii dambana aan kabtan ka noqday gobolka Karkaar waxaan ku soo biiray 2007 2009 waxaan ka qayb galay 2010 waxaan ka qayb galay laba koob oo gobolka Karkaar ah waan ka tagay dalka waxa weeye gobolka Bari waxaan almiitada u gal gobolka Bari gobolada Soomaaliya koobkii gobolada Soomaaliya waa ay saamaxay weyday maadaama aan iskoolkina dhameeyay dalka dibadiisa aan jaamacad la diray dalka Suudaan baan muddo 6 sano aan joogay waxaan ka noqday kabtanka Puntland waxaan ka noqday kabtanka qaranka Soomaaliyeed ee jaariyadda Suudaan ku dhaqan iyadana koob badan baan la soo qaaday oo asxaab badan oo aqoon fiican leh baan ku soo wada qaadanay dalkan dib ugu soo noqday waxaan noqday tababaraha gobolka Karkaar 2016 kubadda xilligaas ay ugu dambeysay aan ku dhex jiro oo aan ka shaqeeyo ama heerkeeda aan ka gaaro koobo badan magaalada Gaalkacyo iyada laftigeeda waa ku dheeri jiray oo naadi daala la oran jiray baan kubadda aan ku bilaabay komseed baan u dhalay waqti badan baan ku soo qaatay magaalada Gaalkacyo oo 2009 waan joogay 2008 waan joogay 2010 waan joogay waxa weeye safar badan baan u aadi jiray magaalada Gaalkacyo magaalada Garowe Baran iyo Buraan iyo Hadaftimo iyo Xingool laas caano oo ciyaaraha saaxiibtinimada ah inkastoo aan saddex dowri ama wareegyada aan ka qayb qaadan jiray gobolka Karkaar iyo gobolka Bari iyo gobolka Nugaal Mudug saddexdaas horyaalada ka soo ciyaari jiray waqti badan baan ku dhumiyay waqti badan baan ku soo qaatay asxaab badan iyo rag badan baan ku leeyahay dhammaan way garanayaan sida aan filayo magaca Rabbin waxa uu igu baxay anigu reer Qarreed baan ahaa oo magacayga la igu yeeri jiray laakiin 2005 baan Boosaaso tagay waxaan ka qayb galay koobka midba igu khasbay oo ilaa noo dheelaysa Ramadaan bay ahayd maaliyadaha lagu dheelayay Chelsea bay ahaayeen finaalada la siiyayna 16 bay ahayd aniguna min bidix la aan ahaa gacanta Rabbi sidoo u qalloociyana waa u qalloocin jiray maxaan ku iraadaa marka tarabuunkii maadaama la aqoon Boos aan laga aqoon magac la igu yeero baa la garan waayay marka tarabuun baa ay bixiyay sida hal nin baa ay bixiyay xamri baa la oran jiray wala xataa wada dheeri jirnay oo tibina wada dheeri jirnay ninkaas marka kubadda noolan oo ahaa iibas Rabbina saasay igu baxday marka magacu sidaas igu baxaysaa wixii igu fiican noloshayda aan ilaawo karin waxay ahayd guushii gobolka Karkaar iyo gobolka Sanaag baa dheerayay ciyaarteedii koowaad bay ahayd waxaan Qardho uga soo baxnay 11 qof sidaa darteed waxaan ku soo baxnay 11 qof oo aan bedel lahayn nin awraas la yiraahdo baa adigu Gaalkacyo nooga yimid 9 qof aan ku soo baxnay iyo boortiyeerigii awraasna Gaalkacyo nooga yimid 11 qof baan garoon ku galay anagana waxaan laga filanayay in laga badinayo maadaama ay naga maqnaayeen 15 balaayar sidaa darteed waxa weeye waan guuleysanay siba awood baan ku badinay 3 iyo 4 iyo 5 saddex gool baan ku badinay ciyaartaas waan xasuustaa ciyaartaas ay ugu farxad badnayd iguna wanaag badnayd horta laba guuldaro aad u weyn baan sheegayaa guuldaro waxa weeye gobolka Karkaar iyo gobolka Bari baa 2008 quarter final isku soo baxay waxaan xasuustaa koobkaas
laba gool baan dhashanay rikooro beeraan nagu dhigay waa qabanay misina gool baan dhashanay 3-1 ah 3-0 ah baa rikooro nagu dhigay gool habseedan nagu dhigay gool kale been nagu dhigay 3-3 way ku dhamaatay rikooryaal baan nagu reebay koobka cadaalad darro weyn bay ahayd qof waliba markaa gobolka Karkaar ahaa waa ku qanci waayay guul darradaas maxaan ku iraahdaa waa guul darro cadaalad darro ahayd guul darrada kale oo soo mudday waxa weeye waa naadiga Horseed Media ama Horseed laanta hawada koob waxaa jiray laga qaaday finaalkii waxaa naga qaaday naadi aan gool ka dhalinay gool baan hormarnay waan la bareejiyay gool baan dhashanay habseed noqday baa la yiri habseedna ma uusan hayn misina goolka aakhir daqaaiq laga dhaliyay marka taasuna boosaasay ahayd labada gool darro ay soo mareen oo gool darro la taaban karo inta maadaama ay koob ahayd tashkiiladii ugu wanaagsaneed waxa weeye nin candaf la oran jiray oo boortiyadii gobolka Karkaar ahaa meel walbaan tagana waa ka haysan jiray afarta difaaca niyo burcun iyo mudammin iyo khaliil iyo indayare baan doortay baalaha sabanka ah Cismaan Dhagoolkaan doontay Yunus Yusuf Mira waxa uu doortay sayyi ugu fiicnaa macaan Daawud Awraas isna saaxiibkay waxaan ka dhigay dhex ote Suraaj qalka bacad isagana diish baan ka dhigay indishe waxaan geeyay nin la yiraahdo daacad oo isaguna gobolka Karkaar aan waqti badan ku soo wada qaadanay noobana Cabdirasaaq Axmed Yaasiin baan ka dhigay oo faraska marka saaxiib tashkiiladaas baa anigu u doortay waqtigii ama jiilkii kubadda ila dhalay aan ugu jeclaantii saaxiib anigu 3 difaac baa kubadda iigu adkaa oo aan kubadda soo galay ama iigu horiyay waxa uu ahaa nin Khaliil la oran jiray oo gobolka Karkaar ka tirsanaa Khaliil wuxuu ahaa difaacii ugu adkaa aan ka hor imaado daaficii xigay wuxuu ahaa nin Sayo Umar la oran jiray oo reemidigu ahaa oo komseed u dheeli jiray daafaca saddexaadna wuxuu ahaa nin la oran jiray Xasan Baarfi oo isaguna tare ahaa oo difaaciisu aad iyo aad u khatar u ahaa saddexda qof baa aniga kubadda inta la dhigay igu adkaa aan kubadda soo horjeesto